I'm a fighter. If you're a fighter, what am I? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو وعنا wanaagsan dhamaan saaxiibada ku xiran channelka Samnickista Official. fadlan channelka hadaa ku cusub tahay subscribe noo saar, kambalelkana furo si markasta ay ku soo gaaraan muuqaalada xiisaha badan ee kaga diyaarino aflaamta laga leeyahay dhankaas iyo koonfur Hindiya iyo waqooyiga Hindiya gaar ahaan Bollywoodka. saaxiib waa ku mahadsan tahay haddii aad hore noo joogtay channelka, waxaa ka codsanayna inaad muuqaalka noo leegarayso, sidoo kalena sii share garayso si uu u gaaro saaxiibo badan. wala ku mahadsan tahay. barnaamijkana maanta waxaa ku soo qaadanaynaa filimka Liger kaasoo markaas qabsaday maanta dunida daafaca caalamka maadaama filimkaasi si weyn loo sugayo. filimkan waxaa laga leeyahay dhankaas iyo Telugu. intaana filimkan u go'go'in waxaa soo qaadanaynaa qodobada xiisaha badan markaas OTT-ga filimada lagu soo fasaxi doono. waxaana ugu horeeya filimka lagu magacaabo F3 oo hogaamiyaalka yihiin Varun Tej iyo ninka lagu magacaabo Venkatesh Dugupati, halka ay caawinayaan gabdhaha lagu kala magacaabo Mehreen Prasad iyo gabadha lagu magacaabo Tamanna oo qaybtii hore markaas kula jiray afarta xidig ayaa qaybtii hore hogaamiye ka ahaa. wadaadda doorarka suboortiga macaawiyaasha ayaa qaybo badan lagu soo daray. haba ugu horeeyay ninka lagu magacaabo Sunil oo doorkan qayb ka qaadan doona Shaatirolaha ama komikisa markaas laga dambeeyo fanka Telugu. sidoo kale wajiyo badan markaas fanka Telugu kusoo gala, hadday noqon lahayd dhanka shaatirada iyo hadday noqon lahayd dhanka hogaaminta iyo hadday noqon lahayd dhanka laarinimada oo ah oo filimkii Pushpa ee qaybtu ka qaatay. sidoo kale Pushpa Part 2 waa kasoo muuqan doona xidigan wuxuu noqday tan iyo markuu sameeyay filimkii Pushpa xidig markaas si weyn loo raadinayo filimo badan markaas soo wada. sidoo kale filimkan waxaa ku jira ninka lagu magacaabo Fenela Kishore oo qaybtii hore markaas ku matalaya nin laada oo markaas ka soo jeeda qoyska markaas filimkan laga hadlayo Barkash Raj ama Serapta. waa qaybtii qayb xiiso badan ay qayd aan soo baxay sanadka 2019 kaasoo noqotay qayb aad xiiso badan darajada blockbuster qaybtaas gaadhay. wasaaradda qaybta F3 waa ka hooseysay maadaama filimkan uu soo xareeyay lacagtiisa gaar ahaan dhanka Telugu ku dhawaad 70 karoor oo u dhiganta $7 milyan Mareykanka iyo filimkan soo xareeyay ganacsigiisa guud dibadda dal. balse filimkan kuma filan maadaama filimkan average soo xareeyay lacagtiisa kala bar. filimkan uu soo xareeyay waxaa ka dhiman ku dhawaad 6 karoor ayaa filimkan ka dhimneyd ama 5 karoor bar ayaa filimkan ka dhimneyd inuu soo xareeyay. balse filimkan ganacsigiisa guud ahaan inta badan 95% filimkan ganacsigiisa ku xidhan filimkan uu soo xareeyay. filimkan OTT ayaa wax lagu soo fasaxay caawa 12 ee markay tahay ayaa barta Netflix iyo Sony Live filimkan lagu soo fasaxi doonaa. waana filim aad u xiiso badan marka la yaabo maanta iyo 4 saac kadib filimkan in markaas soo tarjumo shabakadaha kala duwan ee Astaan Films iyo Faan Bro in soo tarjumaan. waana soo dhigi doonaa groupka halkaas kala socda. filimka labaad ee aan soo qaadanayna waxaa lagu magacaabo Rocketeer oo hogaamiye ka ninka lagu magacaabo Arma Dhavan. sidoo kale filimkan waxaa ku weelayay gabadha lagu magacaabo Parkis Molan. filimkan xiisaha badan waxaa directorka isla Arma Dhavan ayaa filimkan wuxuu isku qaatay doorka hogaaminta doorka markaas agaasinka filimkan ay isku qaatay. waana door aad markaas la fiiriyo door markaas fanka Hindiga wax badan ku soo jiray ayaa filimka ka qaadan kara isku hogaamin kara doorka hogaaminta iyo doorka agaasinka filimka. filimkan filim xiiso badan waxa soo baxay July 1 ayaa filimkan xidigan tiyaatar loo saaray. balse filimkan uu ku fashilmay maadaama filimkan guud ahaan markaas Hindiya uu ka fashilmay maadaama mashruucan waa mashruuc laga daawanayo Hindiya idil maadaama filimkan laga hadlayay saynisyahanka caanka ah ee lagu magacaabo Naan Binariyan oo laga dambeeyay dhankaas iyo sagaashamaadkii kana shaqayn jiray wakaaladda lagu magacaabo ISRO oo markaas wakaaladda ugu weyn dhankaas iyo Hindiya. filimkan waa filim xiiso badan oo markaas laga hadlayay noloshii Naan Binariyan waxaa doorka qaatay Arma Dhavan oo markaas matalayay. sidoo kale 100% filimkan uu kaga horeeyay maadaama uu intaas wajiyo badan filimkan uu ku matalay ninka lagu magacaabo Arma Dhavan. wajiyada kala duwan oo markaa Arma Dhavan xiligiisii bilowga markaas sayniska uu bilaabayay ilaa dhamaadkii dhimashadiisa markaas uu dhimanayo uu markaa matalay ninka lagu magacaabo Arma Dhavan. sidoo kale waxa xiisaha badan markaa filimka doorar muhiim ah waxaa ka soo muuqan doona ninka lagu magacaabo Suuriya. sidoo kale waxa ku jira SRK oo markaas doorar muhiim ah ama muuqaal martiyo markaas kaga soo muuqan doona filimkan. sidoo kale filimkan xiisaha badan ganacsigiisa worldwide close ama dibadda dal. filimkan waxa soo xareeyay ku dhawaad 50 karoor oo u dhiganta $5 milyan Mareykanka iyo filimkan soo xareeyay. balse ganacsigaas kuma filan maadaama filimkan laga daawanayo waqooyiga Hindiya idil maadaama filimkan lacag fara badan lagu kharash geeyay muddo 4 sano filimkan shaqadiisa socotay. intaan ganacsan macnaha filimkan kuma aysan filnayn
intaa in ka badan ay filimkan u qalmay inuu soo xarayo balse uma soo suurtagelin filma July kooda soo baxay ugu hore On the Battle of Methina filmadaas filimka tiyaatarada la isla saaray balse labadaas filim ay fashilmeen sidoo kale filimkan xiisaha badan 26 July ama 4 maalin ka bacda filimkan OTT lagu soo fasaxi doonaa waliba barta Amazon Prime ayaa filimkan lagu soo fasaxi doonaa waana xiiso badan maadaama filimkan in badan la sugayay gruubka Telegram-ka ayaa soo dhigi doona filimkan haddii markaas la soo tarjumo halkaas ay kala soconaysaan saaxiibada qiimaha badan sidoo kale filimka kale aan soo qaadanayno marka OTT lagu soo fasaxi doono waxa lagu magacaabaa 77 Charlie filimkan waxa hogaamiye ka ninka lagu magacaabo Rexisha T oo markaas laga dhameeyay fankaasi Canada filimkan xiisaha badan waxa ku jira gabadha lagu magacaabo Sangeeta Sringai oo markaas fanka Canada inta badan ka soo muuqata filimkan waxa director-ka ninka lagu magacaabo Kiran Raj K sidoo kale filimkan xiisaha badan waxa soo baxay June 10 bishii hore 10 ayuu filimkan oo tiyaatar loo saaray xidigan balse filimkan lama filayn maadaama filimkan lagu kharash gareeyay ku dhawaad 20 karoor balse filimkan box office wuxuu ka sameeyay wax waaliya maadaama filimkan box office-ka Hindi uu ka soo xareeyay ku dhawaad 105 karoor lacagtaas oo u dhiganta ku dhawaad 13 milyan doolarka Mareykanka halka markii hore filimkan lagu kharash gareeyay ku dhawaad 2 milyan iyo 100 kun doolar balse filimkan 3 jibaar ama 4 jibaar filimkan ayuu soo xareeyay lacagtiisa sidaas ayuu filimkan wuxuu noqday super blockbuster waana filim markaas laga leeyahay Karnataka ama Canada fanka loo yaqaan Canada ayaa filimkan laga leeyahay filimkan xiisaha badan waxa soo baxay bishii sidaan ku sheegnay June 10 balse filimkan luqadaha kala duwan Hindi iyo Malayalam Canada iyo Tamil ayaa filimkan lagu daawanayay halka luqadda ugu badan fanka ama lacagta ugu badan ka soo xaray waa luqadda Canada oo marka filimkan lagu daawanayay inta badan filimkan xiisaha badan Rexisha wuxuu gaaray guul weyn sidoo kale darajo weyn ayuu filimkan ku gaaray waxaan noqday filimka 2022 ganacsiga ama lacag ugu badan ka soo xaray dhankaas Canada marka laga soo tago filimka KGF Chapter 2 ayaa filimka ka lacag badan oo kaliya balse filimka labaad ay ku xisoo xigaayo noqonaya filimka lagu magacaabo 77 Charlie filimkan waxa kula weeliyay eeyga lagu magacaabo Charlie oo markaas filimkan inta badan ay waqti qaadan doona ninka lagu magacaabo Rexisha T filimkan xiisaha badan guul weyn ayuu ku gaaray ninka lagu magacaabo Rexisha T sidoo kale filimkan IMDb shabakada lagu magacaabo IMDb rating filimkan waxay siisay 9 xidig halka ay filimada ku qiimayso 10 xidig taas oo ay ka dhigan tahay filimka sheekadiisa inay tahay good movie an excellent movie filimkan ka dhigan tahay film la daawan karo sidoo kale xiiso badan sidoo kale filimkan qorshu wuxuu yahay 29 July oo foodan ugu saarayay filimkan OTT lagu soo fasaxi doonaa waala asbuuc bacda ayaa filimkan OTT lagu soo fasaxi doonaa taasna waa farxad maadaama filimkan aad loo buunbuunay ama hadalhayntiisa aad u sareyso sidoo kale tiyaatarada guul weyn ka gaaray macaash fara badan ay ka helaan qolyaha tiyaatarada filimkan waxaa rajaynayaa in markaas la soo fasiri doono haddii markaas la soo fasixi doono sida u dhaqsiyaha badan shabakadaha kala duwan ee markaas soo fasiri doonaan haddii markaas la tarjumo gruupka Telegram-ka ayaa sida u dhaqsiyaha badan filimkaas soo dhigi doonaa waana ka wardoogi doonaa sidoo kale haddii aad weli muuqaalka leeg saaren leeg noo saara waana ku mahadsantihiin intaas waxaa noogu ekaa filimada OTT-ga lagu soo fasaxi doono bishii 22 July wixii ka dambeeya haddana waxaa soo gudagoli doonaa filimka leeg oo kaga soo hadlay muuqaalka bilowgiisii filimkan xiisaha badan waxa hogaamiinka ninka lagu magacaabo Vijay Devarkonda halka ay ku weerarayso xigta lagu magacaabo Ananya Pandey oo ku soo caabaxay sanadkii 2019 filimkii Student of the Year 2 haddana filimkan ay qayb ka tahay gabadha lagu magacaabo Ananya Pandey oo markaa xidiga markaa saldhigatay fankaas iyo Bollywood-ka sidoo kale xigtaan waxa soo caabixay ninka lagu magacaabo Karan Johar haddana filimkan ay hogaamiye ka tahay ninka lagu magacaabo filimka Lager isla Karan Johar ayaa filimkan producer-ka xigtaan waxa fanka Bollywood-ka markaas inta badan la shaqeeyay ninka lagu magacaabo Karan Johar oo ah marka shakhsiga gabadhan soo caabixay sidoo kale xigtaan waxa dhalay rugcadaaga caanka markaas fanka Bollywood-ka laga dambeeyay ninka lagu magacaabo Chunky Pandey sidoo kale ka soo muuqda fankaasi Telugu filimkan xiisaha badan waxa sidaan koran ku sheegnay producer-ka ninka lagu magacaabo Karan Johar iyo shirkadiisa lagu magacaabo Dharma Production sidoo kale waxa director-ka ninka lagu magacaabo Puri Jagannath oo ku caanbaxay sameynta filimada action-ka oo markaas laga dambeeyay ninkaasi Telugu sidoo kale xidiga ugu waaweyn fanka Bollywood-ka sida Chiranjeevi iyo Allu Arjun family qoyska loo yaqaan inta badan filimada ugu sameeya sidoo kale waa director markaas la soo shaqeeyay xidiga ugu waaweyn markaas dhankaas iyo fanka loo yaqaan Bollywood-ka sidoo kale actor-ka ninka lagu magacaabo Vijay Devarkonda fanka ee dib ay ugu soo laabanayaan tan iyo markuu sameeyay filimkiisii filimka soo baxay 2020 kaas oo lagu magacaabo Wolf Farmers Lover oo markaas xidiga fadlan badan ka soo muuqday sida Rasha Khanna sidoo kale filimkaas waxa ka soo muuqday Aishwarya Rajesh sidoo kale waxa ka soo muuqday gabadha lagu magacaabo Isabella Lee sidoo kale waxa ka soo muuqday ninka gabadha lagu magacaabo Katrina Tres filimkan xiisaha badan waxa soo baxay sanadii 2020 soo filimkaas uu kharash gareeyay ku dhawaad 35 karoor balse filimka waxa laga daawaday dhankaas OTT-ga gaar ahaan barta loo yaqaan Netflix
filimkan waa daawana sida af Soomaaliya oo shabakadaha kala duwan ee filimka soo turjumay waxaan soo baxay sanadkii 2020 tan iyo filimkaas World of Famous ka dhameysay actorka wuxuu ku geeyay soo sameyn la filimka lagu magacaabo Lager laba sano ee filimka shaqadiisa socotay balse hadda filimka waa la soo gabagabeeyay waxaana daawan doonaa 25 Agoosto balse filimkan hadalaynta ugu weyn wax kale markaas saaka waxa laga soo bandhigay goosgoos ajaayib badan sidoo kale filimkan waxa lagu daawanaa luqadaha kala duwan ee markaas laga hadlo aflaamta kala duwan haddii noqon lahayd luqadda Hindiga haddii noqon lahayd sidoo kale Telugu iyo Malayalam iyo Tamil iyo Kannada iyo filimka luqadaha shanta luqadood ugu waaweyn markaas Hindiga filimka lagu daawan doonaa sidoo kale filimkan xiisaha badan luqadda ugu weyn markaas lagu daawan doono luqadda Hindiga oo markaas safarta konton boqolkiiba af Hindiga ama dadka Hindiga ku nool filimka ku hadlaan sidoo kale filimkan xiisaha badan goosgooskiisa inta ugu badan filimkan waxa lagu daawadaa luqadda Hindiga ku dhawaad hadda filimkan wuxuu yahay 12 saacadood waxa daawaday ku dhawaad 17 milyan fiisa waxa daawaday barta la soo galiyay lagu magacaabo Dharba Production oo markaas lagu daawan doono luqadda Hindiga waxaana daawaday 17 milyan halka markaa luqadda af Telugu filimka lagu leeyahay waxa daawaday ku dhawaad 11 milyan wadada guud filimka wuxuu marayaa 27 milyan iyo 2 milyan markaas luqadda Tamilka filimka daawadeen hadda wadada guud filimka wuxuu marayaa ku dhawaad 30 milyan fiis waa 12 saacadood kaliya oo markaas ku jiro YouTube-ka balse filimkan 24 saac kadib goosgooskiisa wuxuu la kulmi doonaa laba oga maadaama filimkan goosgooskiisa markaas uu la yimaado saameyn aad u ballaaran sidoo kale 24 saac kadib filimkan waxa laga yaabaa iskoro weyn in dhigo maadaama filimkan uu noqon doono filim markaas laga daawan doono Hindiya idil 25 Agoosto filimkan wuxuu noqon doonaa maadaama filimkan ninka lagu magacaabo Vijay Devarkonda oo filimkan ku noqonaya Pan India Star filimka hadii markaas uu guulo waaweyn gaaro aadkan wuxuu noqonayaa mid markaas laga jecel yahay waqooyi Hindiya iyo markaas marka laga yimaado fanka Telugu xidigan ku soo caan baxay filimka kala duwan sameeyay haddana filimkan wuxuu noqonayaa filim markaas uu ku soo caan baxay ninka lagu magacaabo Vijay Devarkonda uu istigayo uu markaas ku soo bandhigayo jilinkiisa heerka sare sidoo kale filimkan waxa xiiso u yeelay waxa ku soo biiray filimkan oo la markaas ku matali doona ninka lagu magacaabo Mike Tyson oo filimkan door adag ku yeelan doona oo markaas feeriyahan la dagaaltami doona ninka lagu magacaabo Vijay Devarkonda sidoo kale filimkan trailerka goosgooska markaa inta ugu badan muuqaalka ugu badan waxa qaatay ninka lagu magacaabo Vijay Devarkonda isbedelka ugu weyn markaas uu ka sameeyay jirkiisa markaas sidoo kale filimkan waxa ku matalay nin shishigla ama gaagaala sidoo kale filimkan waxa ka rabsin doona maamada caanka ku soo caan filimkii Bahubali labadiisa qaybood Ramya Krishna ku matalaysa Vijay Devarkonda hooyadiis sidoo kale filimkan xiisaha badan waxa ka rabsin doona gabadh lagu magacaabo Ananya Paindey sidoo kale filimkan ninka lagu magacaabo Vijay Devarkonda oo markaas ku matalay feeriyahan waxa ka rabsin doona Ronnie Troy oo markaas tababaro waa ninka lagu magacaabo Vijay Devarkonda filimkan jirayaal kala duwan ay ka soo muuqan doona markaas fanka Hindiga gaar ahaan Bollywoodka iyo Telugu filimkan iskugu imaaday sidoo kale directorka Project filimkan agaasimay halka shirkadda Dharma Production filimkan producer ka tahay sidoo kale ninka lagu magacaabo directorka lagu magacaabo Project waxay ku midoon doonaan ninka lagu magacaabo Vijay Devarkonda mashruuc isaga lagu magacaabo Tana Garamana waana mashruuc xiiso badan hal daawan doona sanadka 2023 waana mar labaad ay midoon doonaan ninka lagu magacaabo Vijay Devarkonda asxaabta filimka sitaas ayaa ka cusub haddii muuqaalka heshay leeg noo saara waana ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh